sidee ku ogaa kartaa xiriirka aad samaynaysid jaceylka aad samaynaysid inuu yahay mid dhab ah ama qofka xiriirka kula samaynayo qofka jaceylka kula samaynayo waxaan uu kula samaynayo ama xiriirkan uu kula samaynayo inuu yahay mid dhab ah sidee ku ogaa kartaa aku siiyo afar qodob kow haddii qofkan aad xiriirka la samaynaysid ama qofka maanta jaceylka aad la wadaagaysid uu ku hayo dhegaysi xilli kasta xilliga aad wacdo uu ku dhegaysanayo marka aad u baahan tahay codkiisa aad maqlaysid haddii hadda aad maqli weysid waqtiga xiga aad maqlaysid meeshaas waxay kaga turjumaysaa in qofkan uu ku hayo jaceyl dhab ah waayo dhegaysiga wuxuu aasaas u yahay dadka xiriirka samaynayo waxyaalaha beeska u ah ee laga rabo waxaa laga yaabaa qofkan amaanta xiriirka la samaynaysid in mar walba uu ku dhaho waa mashquulsanahay qofka waa bilaadan wuu mashquuli karaa laakiin qofka haddii hadda uu mashquulo haddana waqtiga kale uu mashquulo haddana waqtiga xiga uu mashquulo taas waxay ka turjumaysaa qofkan inuusan ku haynin jaceyl dhab ah laakiin qofka marka uu mashquulo waqtiga xiga haddii uu jaanis uu soo helo uu ku soo xiriiriyo ama marka adiga aa wacdid ama adigu marka aad raadisid oo taleefanka kaa qabto taas waxay ka turjumaysaa qofkan in uu ku hayo dhegaysi jaceyl dhab ahna uu ku hayo qodobka labaad waxay tahay daryeelid qofkan aad jeceshahay qofkan aad xiriirka la samaynaysid ma yahay qofku daryeelo marka ay duruufaha kula soo nuglaadaan marka xaaladaha adag aad geshid marka culaysyada ay kugu imaadaan marka guuldarooyinka ay kugu imaadaan ma yahay qof inta istaaga ku garab siiyo ma yahay qof inta istaago dhinacaada istaago garabkaada istaago ilaa aad ka gudbaysid duruufahaas haddii qofka xiriirka aad la samaynaysid aad ka heysid daryeelid oo ah middaas taas waxay ka turjumaysaa xiriirkiina inuu yahay mid dhab ah jaceylkiina inuu yahay mid dhab ah okay qodobka saddexaad waxay tahay xushmad qofkan aad xiriirka la samaynaysid qofkan aad jaceylka la wadaagaysid ma yahay qof ku xushmeeyo ma yahay qof fikradaha aad soo gudbisid qiimeeyo ma yahay qof ku ogol in fikirka iyo talada aad la wadaagtid haddii aad ka heshid qofka xiriirka aad la samaynaysid xushmad haddii aad ka heshid qofka xiriirka aad la samaynaysid in fikradaada uu qiimeeyo in fikradahaaga uu soo dhoweeyo in uu jaanis kuu siiyo in aad wax la wadaagtid aysan keligiis ka imaanin fikradaha taasna waxay ka turjumaysaa qofkan inuu ku hayo jaceyl dhab ah okay qodobka kale waxay tahay soo bandhigis qofkan aad xiriirka la leedahay qofkan aad jaceylka la wadaagaysid makuu soo bandhigaa xiriirkaada makuu soo bandhigaa qiimahaaga makuu soo bandhigaa waxyaalaha u qalantid iyo waxyaalo ka badan ma kaaga sheekayaa future perspective waxyaabo ku salaysan mustaqbal guur ma kaaga sheekayaa nolol dhab ah asagoo ka fogaanayo khiyaaliga iyo meel awaalka haddii qofkan aad xiriirka la samaynaysid ama aad jaceylka la wadaagaysid uu kaaga sheekeeyo future perspective asagoo ka fogaanayo khiyaaliga iyo meel awaalka taas waxay ka turjumaysaa in qofkan uu ku hayo jaceyl dhab ah in qofkan uu kula wadaagayo xiriir dhab ah sababtu waxay tahay qofkan wuxuu kaaga sheekaynayaa mustaqbalka birto qofkan wuxuu kaaga sheekaynayaa guriga aad degi doontiin ilmaha aad dhali doontiin noloshiina sida ay noqon doonto qofkan wuxuu ku dareensiinayaa riyo wuxuu ku dareensiinayaa dream wuxuu ku dareensiinayaa riyo ku salaysan nolol ku salaysan mustaqbal aanan ku salaysnayn khiyaali aanan ku salaysnayn meel awaal marka saddexdaas qodob haddii aad ka heshid qofka xiriirka aad la samaynaysid ama qofka aad jaceylka la samaynaysid waxay ka turjumaysaa qofkan inuu kaala dhexeeyo xiriir qofkan inuu kaala dhexeeyo jaceyl kaas oo ku salaysan sharciga iyo dhaqanka waayo xiriir walba waxaa loo baahan yahay in bays looga dhigo sharciga iyo dhaqanka waxaan kula dardaarmaa dhallinyarta gaar ahaan dhallinyarta soomaaliyeed marka ay samaynayaan xiriirka marka ay samaynayaan jaceylka in ay qiimeeyaan nolosha qofka bilaadanka ah ay la falgalayaan haddii maanta aad qiimeewaysid qofkan nolosha kula wadaagaya ama xiriirka aad la wadaagaysid waxaa laga yaabaa in aad sabab u noqotid qofkan in uu nolosha ka dhaco waxaa laga yaabaa in aad sabab u noqotid qofkan inay soo wajahaan duruufooyin waxaa laga yaabaa qofkan in ay ku imaado mental negativity ama qofkan in uu ku yimaado stress isku dhexyaac frustration qof walba waxaan u rajaynaa in uu helo lamaano sax ah qof walba waxaan u rajaynaa in uu ku guulaysto nolosha xiriirka ah isagoo ilaalinaya dhaqankii sharciga